بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. soo dhawaada dhammaantiinba aad iyo aad baan idiin salaamayaa bulshada Soomaaliyeed meela ku sugantiinba. jimco wanaagsan kulli anaga dhinaceega jimca noo tahay. saaka waa maalin khayr leh, waa maalmihii ugu fadilnaa maalmaha wiiga, waa maalinta ciidda ee ummadda islaamka. soo dhawaada xasan yare, aad baan kuu salaamayaa saaxiib iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed anigoon magacyadiina soo koobi karin. aad iyo aad baan idin wada salaamaya. waxaan rabaa saaka kolley dee habeenkii baa soo geli jiro, caawa bay kaga dhigteen. saaka waxaan rabaa inaan bulshada la socodsiiyo horta walaalkeen Cabdiraxmaan Sheekh Dabcasar oo kolley dadku aada uga warwarayaan, oo ilaa xalaytana telefoonada dabcan lagu soo weydiinaya xaaladiisana aan horena uga xumayn haddaan nahay aan la wadaagayay dareenka bulshada Soomaaliyeed. Dabcasar saaka airportka Hargeysa 10kii subaxnimo ayaa laga soo dejiyay isagoo dib looga soo celiyay Djibouti. markaa adigu cabaar horeystay waxaa la sheegay malaa xagga Djibouti inuu caqabad kala kulmay oo Djibouti ay diiday inuu sii dhaafo. dabcan taas waa arrimaha Djibouti oo aad ugu sii fogaan mayno, ama ha lagu qabsado baasaboorkuu sitay ama fiisaha wax noocaas. marka hadda iyo xaaladiisa aad iyo aad buu wanaagsan yahay. airportka Hargeysa jooga, shaqaalaha airportka qaybo kamida dabcan adigu dad halkaa joogaba akhbaaraadka ii soo gudbiyey. saakaba markaan soo toosay haddana si wanaagsan baa loo galay oo cidno waxba uma geysan. si qurux badan baana loogu diyaarinayaa tigidh kale oo dhinaca Dubai. marka warkiisa ugu dambeeyay waxa weeyaan in dhinaca Dubai uu ka wareegi doono insha Allah tacaala, tigidhna loo diyaarinayo. taas waxa weeyaan waa arrinka ninka la yidhaahdo Dabcasar. kulli wax kasta waa iska qadar. marka insha Allah tacaala isagoo nabad qaba rajeynaya inuu meesha ku noolaa insha Allah tacaala uu ku soo noqdo. mid labaad baan rabaa inaan saaka halkan iyagana aan waa jimce. horta aniga Soomaali oo dhan cafiisaan waxbay ka tihiin bulshada Soomaaliyeed, anigoon qabiil iyo qolo iyo waxba toona weege. marka qabiil iyo waxaa toona uma eegayo. waxaan rabaa kulley Soomaali waxaa la yidhi kal baqda bay leedahay, kal xishoota ma laha. mobilkan waxaa ku haysta wax ka buuxa. haddaan idiin sheego waxa ugu badan ee maasijada ugu badan waa dad hanjabaya, meelahan ay joogaan, Yurubtaa kale joogaan. beenaale waxaa la yidhi markhaatigiisu fogaya. in badan baan waxaan ku yidhi warnimayahow oo dadkuna igu dhahdaan bukaan socodka faraa kala bax, bukaan socodka iska daa. bukaan socodka horta waxaan aan isku leenahay aan isku haysano xabashi maaha, Ethiopian maaha, cadowgeyga waan aqaanaa, cadowgeyga waa Amxaaro. waxa kaloo igu cadowa siyaasiga cunsuriga, kuwan bisadaha ee libaaxida dadku u yaqaanaan, ee maanta kuwii hanka lahaa ee damaca lahaa magaalooyinka qaar sheeganayaan, kuwaasa igu cadowa. calankaas baan isku haysana. dulqaad malid baa kaloo laigu dhahdaa bulshada Soomaaliyeed. qaar waxay igu dhahdeen ma shaqo tigin oo shaqaysan. horta anigu idinkeedu kuma mashquuli maayo, ama shaqaysto ama yaana shaqaysan. alxamdulillahi rabbil caalamiin. aniga Soomaali waxba ima siiso, dowladna uma shaqeeyo. laakiin sida Soomaali baan sinjigeyga Soomaaliya sharaf maanta aan leeyahay. nin Soomaaliya maanta sharaf igu faani karaan ma jiro. waxa maraga ii furaya xalay mooye habeen hore nin ducaale laahdo wariyaa oo ka shaqeeya TV-ga Kalsan ayaan barnaamij wada qaban. bal dib u daawada xalay xitaa in yar bii la soo galay live-kii. aniga dadku aad moodi jirteen markaan ku leeyahay war dad baan qaati ka taaganahay, dacwadaha igu socda telefoonkayga meel kastaba, qaar xitaa hanjabaadahoodii halkan. warqadahana waan idin tusi doonaa insha Allah tacaala. dadka Faransiiska yaqaan baan doonayaa in aan warqadan bal tuso iyo waxay ka hadlayso, iyo shaambada cas cidda wax ku dhufatee shaambada cas isticmaasha. waxaan doonayaa qaar badan oo jaahiliina oo isku khatalmano anigu waan u dulqaataa, waayo reer masaakiin wax u dirayaan, Faransiis bay la joogaan, halkan uu message igu soo qorayaa. wallahi waan ka dulqaad badan. emergency waa wallahi leeyahay kusoo waa aniga waan hayaa waan tusi doonaa. okay ducaale markaa maxaa dhageysta. barnaamijka waxaan kaga hadlayay danta Soomaaliyeed. waxaan kaga hadlaynay cadowga iyo nimanka qabyaaladistayaasha ee Amxaarada ka xun. ninkii wariyaha waa kii xalayto markii dabcan anagoo ballansan halkaa ka yidhi barnaamijkan habeen hore qabanay Cabdisalaam.
waa cabashooyin bay iga soo gaadhay waa layga soo cawday maxaa lagaga soo cawday ma cid baanu ma hubaanu sidin ma cid baanu ku dulin ma waxaanu ka hadlaynay inaan dadka cadowga u iftiimino ma danta qarankaanu ka hadlaynay ma reerkaygaan ka hadlayay ma madaxweyne farmaajoya iyo ra-iisul wasaare khayra anigu waanu qabiil ku difaacayna mise nala qabiil bay ahaa aniga iyo xitaa ducaalaba waad ogtiin soomaaliya halkaasa horta xaalkeenu maraya marka bal in yar waxaan doonayaa qolyo faransiiskana la jooga horena way u dhacday iminkana igama dhamaato niman sheegta somaliland baana la yidhaahdaa somaliland baana anigu soomaali baana idinkuna soomaali bati kiiskeenana u yaallaa idinkuna ama lyon igaga soo furo ama toulouse igaga soo furo aniguna magaalada inaan degano kiiskayga u yaal waxay sheeganayaan somaliland baana wadankan waanu kaaga soo horreyn waxaanu nimi 86 baanu nimi 84 iyo wax noocaas dacwada igu soo fureen kiisas bay igu soo fureen booliskay la hadleen booliska anuna dacwad baan kasoo furtay waa kuwa somaliland hadda sheegan iyagu soomaalinimadaba ka tegayba oo aan amxaarana waxay u dhexeeyaan amxaaro iyo soomaali qolfigoodu waa soomaali laakiin waxbaa ku yidhi somaliland waxa la yidhahda baa tiin wax noocaasa dacwadeedu waxay noqotay in la yidhahdo iyagu maxay dadkana hortaysaystaan anagu adiga ku garanay faransiisku run baan idin sheegaya soomaaliya macaqaar xun oo ka bagan mala interviewga iyo waxyaaba noocaasa iyo immigrashka war faransiisku burco iyo hargeysa iyo muqdisho iyo kismaayo iyo garowe iyo boosaaso soomaaliya u yaqaan waana fito power maaha european remanasa qajaaniinta aad ku wareegeysaan iyo sweden iyo norway iyo denmark iyo soomaaliyaga oo soomaaliya ma taha dalkaagi okay dacwadan galnay waxay noqotay in la yidhaahdo cabsaan horta maxaad ka hadashaa daanu calankaasaan ka hadla xasiloonada dalkaygaan jeclay madaxweyne kuwii dalkayga soo burburiyey baan arkaya oo dalkayga weli ka jira xasiloonada dalkaaga waad jeceshay bidha maasha allah warqadaasaa laysoo sameeyey qofka malaha faransiiska casaankeeda halkaa waa ka arkaysaan barmale boolis baa ku qoran national police booliskunbaa halkaa wax ku shaambada cas faransiiska isticmaala okay halkaa aan casaanka saaray maxaa ku qoran victim baan malanaya waad arkaysa dadkan victimka ah cadeymahoodii baan hayaa waa victim okay halkaa kale sare maxaa igu qoran bal usoo dhawaada booliiska xafiisyada ugu sarreeya markasa waa halkaan calaamadaha saaray haddaba masaakiin baa tihiin kuwiinan ila jooga faransiiskow hooyooyinkiini oo masaakiinaba waa ku dirtaan habeen o dhan ama halkan igu soo caaya ama telefoon iga soo garaaca xitaa wallaahi kuwa kale yurub jooga anaa idinka dulqaad badan waxaan aad ku wareegeysaan aniga ima muuqato qabyaaladan reer hebel baanu nahay reer hebel kalaanu nahay wallaahi bartiin inta laydinku soo qabtaa laydin xadhaya weliba macala emergency baa laygu siiyey waa taa macaashaan badda casar hadhow ha igu odhan inaad daba cabsanaan ma waa bilaa dulqaad baa tahay sidaasaa tahay dadkan aad idinku weyne anuu bisadaan u aqaana bisadaan waxaan u aqaanaa kuwa hargeysa maanta maamulaya bisadaan u aqaana waayo amxaari u dulaysiin waa kuwa dalka naga dumiyey kuwan muqdisho joogana waxaan u aqaanaa bisado kale idinku laakiin libaaxyaa u haystaan waxaa ka mid a kaa maanta arrinkiisa loola wadwada ee la yidhaahdo cabdiraxmaan cabdishakuur soomaaliya bal nasiib darradaydan haysta kaasaa wuxuu doonayaa inuu ama ra-iisul wasaare idin noqdo ama madaxweyne idin noqdo inta aniga ila yaabintiino cabdisalaan oon xilba idin ahaynba oo aan nin mas-uul oo siyaasiyaba ahaynba ka cabdiraxmaan cabdishakuur la yidhahdaa wuxuu ku hadlaya waa maqlaysa dadkii muqdisho martida noogu ah oo yaa marti ku ah muqdisho maana caasimada soomaaliya ahayn ninka sidaa u hadlayna waa laygu haystaa markaan soo hadal qaado oo anigaa lay qabsanayaayo mid dee qabiil ku difaacaya waayo waa bisado weeyaan libaaxiyo ismoodayaan waa bisado meel uma bixi karaan dunida karaamo kuma laha amxaar lama hadli karaan cabdiraxmaan cabdishakuur dadkiisa dhimanaya ku dhimanaya muqdisho dan uma hayo dadka bambooyinka lagu qarxinaya dan uma hayo laakiin qabiil baa u muuqanaya waxaa u muuqanaya farmaajada reerkiisa iyo qabiilkiisa anuu adan farmaajo la reermiyi khayrana la reermiyi bejkaygana aniga adag si xoraanan u hadlaya siyaad barraan maanta caawa halkaas soo dhiganayay waxaan u soo dhiganayay sharaf soomaaliyeed oo maxamed siyaad barre ka dambeysay ma jirto inan yaroo wada qaxoonjibaatiin soomaaliyay meelahaasaa la soo wada fadhidaan xaasidnimo nacayb soomaaliyeed kuwan hargeysa waxay kaga daran ee aan dacwadaha isla galnay ee faransiiska yidhi faransiis baan kuga awood sheegananaa faransiis baan kaaga soo horey oo waxaanu nahay safaarad baanu ku leenahay jaaliyad lyon baanu ku leenaho toulouse baanu ku leenaho faransiis baan kuwaasoo soomaalinimadaba bay diidayn qaar kaloo calankan kula sheeganaya oo calanka ista oo soomaali iska dhigaya oo kuwaa kasii xun baan arkay iyagana saan kuwa isu ereenayna baan qaar kale isu galnayba
oo iyaguna koodhanaya haddaad kan soo hadal qaadid, haddaad cabdiweligaa soo hadal qaadid annagaa dimi naga gashay, haddaad maad salaad soo qaadid dib hor aan dhuguniyo ilaahay haydin soo hadiyey. anigu maasha allah baan ku jiraa halka iyagu ay maraan unba inaan wada marayn. soomaalina ama saasaa lagu haysanayaa ama dad caadiya noqonaynayo dunida kusoo biira. maanta dunidii waxay noo taqaanaa faylaystay, dunidii waynu ka dambaynaa. sharaf iyo karaamo ka dambeysay dowladdii ilaahay u naxariistay maxamed siyaad barre. waa haddaad runta doonaysaan waa maalin jimca salaadan aadaya mar dhow waan iskaga baxayaa. qofku hadduu been ku nool yahay oo been doonayana beenta reerkiina la aad, qabiilkiina la aad. adeer aniga waxaa laga tiriyaa kuwa la yidhahda siyaad barraa dhib u geystay sida waa dhulku nooga tegey ee dhulkii dowladda oo barca nooga tegey kuwanaa cunay ka dambeeyey. dhulkii bannaana dhulkiibaa ka baxsan waayey, dadkiina way cuneen, dhulkii way cuneen. ama xabashi nooma iman jirin dekedeeda berbera, ama xaaro qayb nagulamay lahayn, soomaali qayb kulamay lahayn. maxaa ka dambeeyey marka? ma fican iyo been baynu isu sheegnay. muqdishona waxa ka dambeeyey wax aan waxba ahayn baa ka dambeeyey. waxa ka dambeeyey maxamed siyaad barre mooryaan iyo kooxahan kale iyaguna hargeysa ka taliya maafiyada. waa maafiya iyo mooryan. UNC baa mooryaan noqotay, SNMna maafiya noqotay. dalkii bay burburiyeen, ummadii bay qaxoonti ka dhigeen, iyagii baa qaxoontiya. muddada yar bay halkaa joogaane ay meelaha wax boobayaan. marka dambe caafimaadka Dubai bay u doontaan, London iyo meelahan ay imanayaan. diyaarada ma laha, UN-kay diyaaradaha ka karaystaan, ama xaaraday soo baryaan. waxaa markaa aniguna intaan noolahay halkaasaan ka hadlayaa. qolyahana digniintaasaan halkaa marinaya, ha igu khatalmina. anigu waan idinka dulqaad badanahay, waayo reere masaakiina waxu diraysaan. ma aha hadda kuwa faransiiska jooga qura, war wallaahi macaa kuwa yurub jooga, yurub aan wada joognaan, kuwa maraykan jooga ha iska soo qayliyaan, iyo Australia iyo kala sharci baan. laakiin kuwa yurub jooga xitaa wallaahi qofka badahayga soo gala ee niici la yimaada iyo soomaali diidnimo waa wixii dambe imkaba idinka idin taala. hadhow waxaa la arki doonaa soomaaliyay cabdisalaan oo qof xaasiday oo qof soo xidhay ayaan ka xishoonay anigu, iyo qof la yidhaahdo yaroo miskiina iyo gabadh miskiinada in laygu idhaahdo caqabadaad ku noqotay, dhibbaad ku furtay. ma doonayo. waad baahanta, wayn wada baahannahay. adiguna qaxoonti baa tahay, anna qaxoonti baanahay. qunyar qaxoontinimadiina soomaalinimada iska jooga. weliba idinka guryihiina waxaa idin yaalla calanadii qabiilka idin yaalla oo calanadii reeraha dhigatan. anugu laakiin kaygaasaan sitaa, facebookigana lagama soo helayo. facebookina waxaa idinku jira calanadii qabiilka idinku jira oo reeraysan, ama 18 May ha noqoto, Puntland ha noqoto, anu waxaan ma kala qaaday, Jubbaland ha noqoto, Somaliland ha noqoto, waxaasa idinka buuxa. markaa nima yahow ilaahay idin soo hadiyo oo ilaahay tawfiiqda iyo soomaalinimada ha idin fahansiiyo. inta wax kale iskuma haysano, qabiilna anugu si gaar oo ma haysto. haddii qabiil laga hadlayana kuwa siyaad barre laga buuxiyey, siyaad barraa idin laayay, siyaad barraa sidana burco idinku duq, kuwaasaan kasoo jeedaa saaxib. siyaad barre ilaahu naxariisto uu dhintay, dal kama dambeyn, sharafi kama dambeyn, soomaalinimo kamay dambeyn. waxaa ka dambeeyey qaar wax boobaya oo qabyaalad iyo cunsuriyad abuuraya oo bisadaa. libaax buu ahaa, ilaahu naxariisto, soomaali wax ka dhigay oo aan soomaali cadowgu agtooda soo marin. maantana bisada Etoobiyaanka u sujuuda oo u foorarsada ayaa maanta aynu ka dhigaynaa libaaxiyo ka dhigaynaa. laakiin waa bisado. marka bisadaha iska wata dee. anugu bisadaha iyo waxaa lama sheekaysto. dowladeedana waan taageersanahay, waanu u ducaynayaa. allah raxmaankaana Soomaaliya karaamadeedii iyo sharafteedii ha soo celiyo. waa jimco wanaagsan dhammaantiin. aad iyo aad baan idin salaamayaa. intaas waa inta bukaan socodka. kuwa Soomaaliya meelaha ka soo qayliya iyaguna bukaan socodka baan la yaabaa. war dalkaagii baa burbursan, waxaa tahay amxaar baa meel kasta kugu haysto, kugu gumaysanaya. haddana qabiil baad qof ku difaacaysaa, qabiil baad qof kula socotaa. waa nasiib darro kale. lagama quusta haddaba rajada ilaahay. insha allahu tacaala way la soo daali doonaa, kanaa la isugu iman doonaa, iyo soomaalinimadii iyo sharaftii Soomaaliyeed. kuwaasna waxba ha ka sugina. kuwa maantaba magaalada sheeganaya leh caasimadda annagaa le, marti baana loo yahay, waxba marti kuma ah. isaga iyo farmaajo run baan idiin sheegayaaye waa Soomaali, waa nin simiin iyo anaguba waa nin uun isku xaaray weeyaan oo iska hadlay. dee balkaasaa doonaya inuu Soomaaliha hogaamiyo. caqligeenna halkaasuu maraya. kaasaa qabiil dhan difaacayaan oo qabiil dhan baa ku soo galayaba. war adeer horta adeer waxba ma doonayo inaan aada isugu sii badanneen. war Cumar Cabdirashiid waan ka hadlaa, Muuse Bixiyo Silaaye waan ka hadlaa, Maha Salaado waan ka hadlayaa, mid kastoo dhib Soomaaliya ku hayo waan ka hadlayaa. waana caqabad Soomaaliya ugu yiin. hayla imanina anigu idinka si taarigida idinku dadka iska dhex saarina. Muuse Bixi waa reer buyo, reer buu soo jeedaa. sidee ayna reer buu soo jeedaa? anagu reerkay ku soo jeedaaba.
caqabadu soomaaliya ayuu ku yimi cabdiweligaas reer buu kasoo jeedaa isma qabsanayno caqabadu soomaaliya ku yimi cumar cabdirashiid kan 24 saacood leenahay waana dee aabbaha cumar cabdirashiid kooxdan dib jiray maafiyada isba waa reer markaa iga daya saaxiibeer hadday ilaahayna garanaysaan markaan ka hadlo cabdiraxmaan cabdishakuur adaalkaa waxay ku soo qoraysaan hawiyu naceebaya hawiyaa sidana abiyaa ka hadlay war anagu waxaa ma dhegeyste aad iyo aad baan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay kuwa xanuunsanaya qalbiyadooda wax caadi ah ka dhigo oo soomaali saxa ilaahay qulubtooda ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ninkii dabcasarna kolley dabcan dadka gadaal iga yimi mar labaad baan ugu soo celinaya wuxuu joogaa 10kii subaxnimo saaka uu joogay airportka hargeysa walaal dabcasar waxaa laga soo celiyey meesha la yidhaahdo jabuuti ayaa dib ugu soo celisay hargeysa hadda waxaa loo diyaarinayaa tigidh uu ku maro xagga iyo dubay tigidhkiisa hawshiisa baa lagu jira wuu caafimaad qaba uu wanaagsan yahay intaa caqabada baa ku timi dabcan oo dhinaca jabuuti uu kala kulmay caqabad hawshaana insha allahu tacaala dee way dhammaanaysaayo sidaa ula socda kulley isna uu soo hadli doonaa haddii ilaahay ka dhigo uu nabad qabo waxaan warkiisii ugu dambeeyey saakuu soo gaadhay waa ka hargeysa airportkeedu joogaa jabuuti baa laga soo celiyey dubay baanu imika wareegaya tigirkiisa baana loo diyaarinayaa intaasaan rabay inaan caawidna socodsiiyo aad iyo aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu